wuxuu leeyahay qofkan la yaab ma lahan walaalaha Soomaaliyeed hore ayay cashar adag ugu dhigeen Muqdisho Sahyuuniga Ameerikaanka ah ayaka ayaana baray iska caabinta macnaheeda ilaa hadda Ameerikaanku ma hilmaamin wixii Muqdisho kula dhacay iyo casharkii ay u dhigeen shacabka mujaahidiinta ah geesiyaasha ah walaalaheena Soomaaliyeed ee sharafta leh wuxuu yiri qofkan waxaan ka soo jeedaa Falastiin waad ku mahadsantihiin walaalaha Soomaaliyeed garab istaaga aad noo muujiseen wuxuu yiri qofkan ma hilmaami doono dagaalkii iska caabinta ahaa ee walaalaheena Soomaaliyeed ay Ameerikaanka la galeen sanadii 1993 runtii way burburiyeen kadib markii telefishinka Al Jazeera khudbadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ay ku turjumeen afka Carabiga waxa ka falceliyay dad aad u fara badan oo Islaam ah Soomaali Arab iyo ajaanib intaba muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa qoraallo iyo kommentiyo aad u qiiro badan kuwaas oo aan aniguna aad ula dhacay adigana aan rajaynayo inaad la qiiro doonto soo dhawaada mar kale dadka Soomaaliyeed aan ku bilaabo kommentiga ugu horeeya ee laga bixiyay kadib markii telefishinka Al Jazeera ay turjumeen khudbadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kommentiga ugu horeeya qofkan wuxuu ka soo jeedaa dalka Ciraaq wuxuu leeyahay walaalaheena Soomaaliyeed ee sharafta leh weligood kama dagayaan mabaadi'dooda islaamka ah dad ilaa kun ku dhow 932 qof ayaa la garaysay qofkan kale wuxuu yiri waxaan ka soo jeedaa dalka Falastiin waad ku mahadsantihiin walaalaheena Soomaaliyeed sida aad noola danqateen qofkan kale wuu qariyay dalka uu ka soo jeedo wuxuu yiri ma hilmaami doono dagaalkii iska caabinta ahaa ee Soomaalidu ay la galeen sanadii 1993 Ameerikaanka runtii way burburiyeen wuxuu yiri waxa ku waajib ah dhanka dawladaha Carabeed ee Islaamka ah in la ilaaliyo oo la taageero dawladda Soomaaliya wuxuu yiri qofkan kale waxaan ka soo jeedaa dalka Algeria salaantaydu waxay ku socotaa shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadooda sharafta leh wuxuu yiri qofkan shacabka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah ma hilmaami doono taageeradii ay noo fidiyeen haddii aan nahay Eritrea si aan u madax bannaanaano waad ku mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed garab istaagii aad noo muujiseen xilli caalamka oo dhan ay indhaha naga xirteen qofkan kale wuxuu yiri salaan ka socota muwaadin Masri ah oo ku socota Soomaaliya shacabkooda iyo ra'iisul wasaarahooda wuxuu yiri qofkan kale waxaan ka soo jeedaa Yemen salaantaydu waxay ku socotaa dawladda Soomaaliya ee walaalaheena shaqiiq waxa la yiraahdaa qofka kugu hooyaha iyo kugu aabada ah wuxuu yiri qofkan kale oo qariyay dalka uu ka soo jeedo geesinimadu kama imaato dadka kursiga adoonka u ah waxaana ku haboon in lagu tilmaamo kuwa muqaawamada ama iska caabinta ku tilmaamaya argagixisada waxa hoogay kuwa Carab xukuma waxay ka baranayaan hadalka xaqa ah salaan ka socota Masri oo ku socota Soomaaliya iyo xukuumadooda intaas ayaan ku soo koobaynaa falcelinta laga sameeyay khudbadii ra'iisul wasaaraha magacaygu waa Mubaarak muuqaalka like saar siina share gareeya page kan waayaha dunidana soo booqda waa mahadsantihiin